xumaantii buu sheegay haddana midda kale ummadii buu ugu baaqay gabdhayow hadla soo kaca xilliga wax la qarinayay maaha xilli war ilaahay baa qari adu maad qarisid carabkan aad ku hadlaysaan nafku kale soo ilaahay kuma siin cirrada kugu taalla soo ilaahay kama soo saar sideedaba horta shaydaanku xumuhu jecel ciidana uu leey ilan ilaahay wuxuu sheegay inuu jiro xisbu shaydaan xisbu shaydaanku xumaantay faafiyaan dadka ahlu khayrkuna khayrkay faafiyaan maanta ummaddu badownimo halkii ka gaadhay in ilaahay la caasiyo ayay horumar ka raadinayaan ilaahay la caasiyaba haddama garanta marka anu waxaan odhan lahaa arrintan waa arrin aan fiicnayn arrin aan wanaagsanayn in laga daawoowo ay ku fiican tahay ummaddu ay iska daayaan ma garata kaa qabyaalada ku baaqayna inuu qabyaalada iska dhaafo taa xumaha ku dhawaaqaysa ee arrimihii gogosha laga xishoonayay ee ceebta ahayd yaa kuwa ku hadlayana waxaan odhan lahaa war ilaahay ka baqan oo xishooda oo waxaan iska dhaafa oo sharaf maaha waayo horta xanuun waa jira anigu waxaan aaminsanahay xanuun maskaxeed baa jira xanuun maskaxeed waa uu jiraa xanuunka maskaxda dadka qaar qabaan waxaa suuragala dadka qaar inay umayn inay caafimaad qabaan anigu qof xishoon waaye oo dariiq cidla soo istaagay ee waxa ku hadlaya anu horta waxaan qaba maskaxiyan waxbaa horta u dhima caqliyan ilan mogtahay waxaa jira waxayna da' kuu geysay iyo waxay kuu geysay maxaa la yidhaha dameel xumo marka dadku caqlina waa leeyihiin da'na waa ku jiraan laakiin xishoodkan iyo foolxumadani waxa heerkan gaarsiiyaan waxaan u arkayaa xanuunaa jira xagga maskaxda ah hadday xanuunsan horta ilaahay caafiyo haddaysan xanuun ahayn ay edab darro ka tahayna waxa weeye waa khatar nabiga sal alla alay wasalam xadiisa wuxuu ku leeyahay warkaa u fiirsada saddex ilaahay aakhiro lama hadlo ma soo dhawo in naxariisa kuma eego hadda warkaa u fiirso waxaa ka mid ah shaykhun zani qof weyn oo waayeela oo macsi ku baaqaya macsilowa hadda warkaa u fiirso qofka maanta xumaan dariiqa la soo nabiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi allisaanu yazni carabku u zinaysta soo ma wazinaahu kalaam zinadiisuna waa maxay dee waa hadalka qof weyn oo faaxisho dariiq la soo fadhiistay xaqiiqatan xadiiskaasi meel buu ka taabanaya marka anigu waxaan odhan lahaa dadkaa xunxun waxyaaba xun ku baaqaya war ilaahay ka baqa haddaad sharaf ku raadinaysaan ood magac ku raadinaysaan oo dadnimo ku raadinaysaan wallaahi oo billah oo tallahi kuma helaysaan ilaahayna waad kaga fogaanaysaan ummaduna dee qofkaasoo kale way nacaanba hadda warka ma garat ummaduna way nacaan ummadda waxay jecel yihiin qofka niyadooda u dhisay ee ilaahay ku xiraa adigu ilaahay ka fogaa ummadda ka fogeyni adiga muslimka haddaad adigu ilaahay ka fogaatay waxa qofku waa laba dembi marna isagii baa fogaada horta isagii baa ilaahay ka fogaaday marna ummaddu ilaahay ka fogey hadda waa fiirso mar isagii baa fogaadayoo dee waxaan xumaantan ayuu ummaddii magaranaysaa ee faraha ula geliyey oo asaga baaba waxaani wuxuu leeyahy waan sameeyey anaa eegay anigaa saan yeelay dadkaa qof maqlaya maalinta aakhir wallaahi oo billahi kulli markhaati ku noqonaya dadka waa markhaati ilahay soo maha ya waxaan aad tidhahda anaa beri waxaa sameeyey anaa waxaa sameeyey nabiga sal lla alay slam wuxuu yidhi waxaa dadka ugu xun qof ilaahay ceebtiisii asturay asaga dibadda iskeenay ya mujaahir baa la yidhaha xumaantuu la jahray anaa sameeyey wuu ku faanaya ilaahay baaba asturay muu iska asturnaado maxaa ceebtiisa banaanka soo dhigay dembigan adiga ilahay buu idinka dhexeeyahay laakiin xumaantii buu sheegay haddana midda kale ummadii buu ugu baaqay gabdhayow hadla soo kaca xilliga wax la qarinayay maaha xilli war ilaahay baa qari adu maad qarisid carabkan aad ku hadlaysaan nafku kale soo ilaahay kuma siin cirrada kugu taalla soo ilaahay kama soo saar anigu waxaan odhanaa wardadow ilahay inaad ka baqataan xishooda oo dumarow xishood baa laydinku ogaa xishooda ragow xishood baa laydinku ogaa cimriga aad ku jirtaan xishooda oo waxaan odhan lahaa maanta dhaqan xumada facebook ana ciyaal yaryar haddii hadli lahaayeen ay waxa sheegi lahaayeen waxaan odhan lahaa dee waa noloshay ku cusub yihin xamad baa haysa ma garatay waxbaa kicinaya laakiin qof waa yeelo aan isagiiba xaaladiisa ilaahay ogyahay ee faxsha ayay ahda wallahi waxaan dhihi kalaa ilaahay laga boqo anu waxaasi wax sahlan ilamaan xaggayga waa ka baxay تصيف يعني وطوانة وعد شيخ آدم الشيخ محمد آدمي لكن واحد كليا قلت له وحيتها إلى سبحانه وتعالى كنت مع وحيتها
kuwa jecel inay faafto xumaanta faaxishada iyo fuxshida iyo wix la mid ah kuwa inay u dambeyn doonto yani inay naag u dambeyn doonto walciyaadu billah nabi sal slam wuxuu noo tilmaamay waxay tahay qofkii jidka wanaag ah dadka u jeexa u tilmaama inta wanaagaad samaysa in ajarkiisa uu helayo sidoo kalena qofkii inta xumaan dadka u tilmaama oo iyo wix la mid ah inta samaysa iyo inta hadaladaas ku dhawaaqdana in ayaga sababtoo asiga baa waxaa tusay asiba hogaamiye u ah sama tusaale u ahaa ayaga hadday sameeyaanna dembiga uu leeyahay waxaan dhihi lahaa waxay tahay marka ilaahi subxaanahu watacaala uga baqa midka labaadna waxay tahay dadka daabanaya iyo dadka sii sheergaraynaya iyo commentiga ka bixinaya xumaantaasna waxaan leeyahay in la buunbuuniyo ma mudna sababto xataa qof walba dadaa soo saara adi haddaadan daawo lahayn yani saacadan intaas qof ma gaari lahayn ba ma ogaan lahayn marka qaybo ma yeesha lahayn ba erey qor badan markaan waxaan dhihi lahaa waxay tahay yaan waxaas qiimo loo yeelin insha allahu tacaala yaan la daawanba محاضرات كي وناقي خيرات واحد دنيا آخر ينفع كم مشغول إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم